wasaaradda caafimaadka dalka Djibouti ayaa maanta xaqiijisay in dalka laga helay kiiskii ugu horeeyay ee qaba viruska corona waxaana qadka Skype-ka ee magaalada Djibouti toos ugu jira Maxamuud Cusmaan Bulxan. Maxamuud, nooga waran kiiskan iyo sida ay xaaladdu tahay. waa ka xunnahay Maxamuud waa noo soo noqday mar kale. Maxamuud, xaaladdu nooga waran. cudurkan wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay waxaana ay sheegtay inuu ahaa qof ka imid waddanka Spain oo soo gaaray Jamhuuriyadda Djibouti 14kii bishani. baaritaano dheer kadib wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay in qofkaasi uu la socday 32 qof oo kale oo u dhashay waddanka Spain oo ka soo safray waddanka Spain gaar ahaan magaalada Seville ee waddankaasi. dadaalo badan ayay wadaa dadkana waa la karantiiray oo meelo ayay ku haysaa wasaaradda caafimaadka si baaritaan loogu sameeyo oo ugu dambeyn looga xaqiijiyo, laakiin waxa ay sheegtay in 32kaasi qof lagu celin doono waddanka Spain oo wasiirka caafimaadka Djibouti Maxamed Warsame Diiriye uu BBC-da u sheegay. Maxamuud, bal nooga waran sida dadweynaha ay arintaas ay u saameysay iyo sida xaaladdu ay tahay. waxaan dhex maray qaybo ka mid ah magaalada dadka cabsi xoogan ayay dareemayeen. madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo shalay kulan degdeg ah isugu yeeray laamaha ay qusayso caafimaadka iyo ciidamadaba ayaa waxa ugu baaqay dadka in feejignaan dheeriya ay muujiyaan isla markaana ay si aad u farxashaan isla markaana ay ilaaliyaan farxalka. dadka cabsi ayaa ka muuqata Cusmaan, inkastoo mas'uuliyiinta dowladda Djibouti ugu horeeyo wasiirka caafimaadka uu sheegay in qof qaba cudurka uusan waddanka gudaha u gelin oo dadkii dibadda ka imid la karantiilay. 9 qof ayaa sidoo kale qayb ka dadka waddanka ku soo laabtay oo 6 ay ka mid yihiin ciidamada militariga ee waddanka Djibouti oo tababar u jooga waddanka Talyaaniga, halka qaar kalena ay yihiin 2 Turkiya iyo qof Pakistan u dhashay. dhammaantoodna waa la karantiilay. ugu dambeyn tallaabo ay dowladda sheegtay ma jirtaa oo ay qaadayso? dowladdu waxa ay sheegtay inay tallaabooyin xoogan ay wado oo lagula dagaalamayo cudurkan. dhammaan waxaa la xiray garoomadii diyaaradaha oo wax diyaarada oo socda ma jiro. xuduudaha dalka ayaa sidoo kale la xiray waxaan ka ahayn shixnadaha iyo kaargoga ka soo degi kara. wasiirka caafimaadka ayraada wasiirka waxbarashada Djibouti oo warbaanta soo saarayna dhammaan waxa uu fasaxay ardaydii waxbarashada oo waxaa la xiray fasaladii waxbarashada. Bulxan, Djibouti marka diyaaradaha la mamnuucay ma ku jiraan kuwii ciidamada maadaama saldhigyo military halkaas ku yaalaan? dhammaan safarada dibadda waa la mamnuucay waxaan ka ahayn diyaaradaha wax u keena ciidamada ee shixnadaha wadee kaargoga. ciidamada diyaaradahaasi wax u keena waxaan ka ahayn wixii kale waa la mamnuucay dadka rayidka qaada. marka dadweynaha caadiga ah sidaad horeyba noogu sheegtay ilaa intee baraarujinaha ay ka qabaan cudurkan maxayse ka og yihiin? dadkan waxa ay si weyn u dhageysanayaan khibrada dhinaca caafimaadka oo talooyin xoogan siinaya sidii cudurkan looga hortagi lahaa, iyagoo dadka loogu baaqayo inay farxashaan isla markaana ay feejignaan dheeriya muujiyaan guryahana ay joogaan. aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Bulxan.